iyadoo laga ambaqaadayo waajibaadka dastuuriga ah iyo xaqa uu siinayo muwaadin kasta ee helitaanka waxbarasho tayo leh. haddana gobolka Banaadir caruurta ku nool gobolka Banaadir oo gaartay da'da waxbarashada oo aan aadin dugsiga helina waxbarasho aasaasi ah. sidaa darteed agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir waxaa ka go'an inuu gaarsiiyo waxbarasho tayo leh. qorshahaas waxbarasho ee gobolka Banaadir oo aynu maanta daahfurayno wuxuu iftiiminayaa dhinacyo aan doonayno inaan u jihayno, asagoo tilmaamaya dib u habeynta himilooyinka iyo hawlqabadyada iyo tilmaamaha na tusaaleynaya sida aan u horumarin karno tayeynta waxbarashada aan shanta sano soo socoto. aniga oo ka ambaqaadayna taas waxaan rabnaa in aan fulinta qorshahan aan rabno uu qaadanayo qaybta ugu horeysa ama hoggaanka ugu horeysa uu qaadan doono maamulka gobolka Banaadir, isagoo kaashanaya daneeyayaasha bahwadaaga waxbarashada, wasaaradda waxbarashada heer federaal. iyadoo loo marayo qorshahan, gobolku wuxuu xaqiijinayaa inuu hagaajiyo guud ahaan maamulka iyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka adeeg bixinta waxbarashada. agaasinku wuxuu hoggaan u qaban doonaa jihaynta mashaariicda, sida loo qaabeeyo isbarbaryaaca iyo shaqo fulinta mashaariicda gobolka socota. waxaa halkan kale aan rabnaa inaan ka sheegno oo aan rabaa inaan rabo recommendation dhibto cid walba ay qusayso programkan qaybta uu ku leeyahay, ama hay'ad ha noqoto ama bah waxbarasho ha noqoto ama cid walba daneynaysa waxbarashada gobolkan, inay qaybta ay ku leeyihiin aan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno oo aan kala fulino.